kani ma aha roob caadi ah. waa roob mucjiso ah oo haddii uu kugu dao dib ku siinaya dhallinyarnimadaadii iyo awooddaadii hore. magaaladan waxaa ka buuxa nolol iyo xamaasad, dadkuna dareenkooda waxay ku cabbiraan ciyaar iyo dheel. laakiin odaygan dada ah xiise uma hayo waxaas oo dhan. sariirtiisa ayuuna ku caajisayaa. xaaskiisa oo aad uga walwalsan xaaladdiisa ayaa isku dayday inay ku dhiirigeliso inuu baxo oo uu dunida arko, balse odaygu si adag ayuu u diiday. iyaduna si murugo leh ayay keligeed u baxday. markii ay baxday wuxuu eegay sawirkoodii hore ee waagii ay dhallinyarada ahaayeen. daaqadda markuu eegayna wuxuu arkay xaaskiisa oo keligeed socota, waxaana isla markiiba bilowday roob mahiigaan ah. si lama filaan ah lugihiisa ayaa u dhaqaaqay laxan gaar ah sidii iyagoo naf yeeshay. wuxuu dareemay awood cusub, wuxuuna bilaabay inuu si xamaasad leh ugu dheelo balakoonka gurigiisa. balakoonkii wuu ku yaraaday, wuxuuna u soo degay waddada isagoo si farsamo leh u dhex jiiraya dadweynaha iyo baabuurta. wuxuu u soo orday dhanka bartamaha magaalada halkaas oo uu kula kulmay xaaskiisa. isla markii ay roobka wada galeen, mucjisadii ayaa dhacday. labadoodiiba waxay ku soo noqdeen dhallinyaronimadoodii. farxad iyo jacayl dib u soo cusboonaaday ayay roobka dhexdiisa ugu wada dheeleen, balse daqiiqada kadib roobkii wuu yaraaday, muuqaalkoodiina wuxuu ku soo noqday sidii hore. odaygii oo aan aqbalin gabowga ayaa isku dayay inuu roobka eryado si uu dhallinyaro u sii ahaado. wuxuu si waali ah u eryaday daruurtii roobka ilaa uu gaaray buundada dhammaadkeeda, laakiin roobkii wuu ka sii fogaaday. rajadiisiina halkaas ayay ku dhammaatay. isagoo aad u niyad jabsan oo daalan ayuu dib ugu soo laabtay xaaskiisa. laakiin iyadu ma murugoonin, dhoola caddayn iyo habdiiran ayay ku soo dhowaysay. ugu dambayntii odaygii wuxuu fahmay in jacaylka iyo farxaddu aysan ku xirnayn dada. gacanta ayuu u taagay xaaskiisa, wuxuuna ku casuumay inay wada dheelaan iyagoo ku qanacsan dadooda.